shan waddan oo ku kala yaala 4 qaarad ayaa samaystay isbahaysi oo siyaasad iyo dhaqaalaba ay isaga caawinayaan. Wadamadan waxay kala yihiin Brazil, Ruushka, India, China iyo South Africa. Ururka ay ku midaysan yihiinna waxaa loo yaqaanaa BRICS oo laga soo gaabiyey magacyadooda xarafka ugu horeeya. Isbahaysigan ayaa ka mid ah kuwa ugu awoodda badan caalamka. Shantan waddan ayaa ku fadhiya 26.7% bedka dhulka. 41.5% dadka caalamka ku nool waxay ka soo jeedaan shantan waddan. 25% wax soo saarka caalamka shantan waddan ayaa soo saara. GDP-gooda marka la isku darana waa 25 trilyan oo dollar. Waxaa muuqata in shantan waddan ay ka dhaqaale fiican yihiin Yurub iyo Mareykan. Dadkoodana waa ku dhawaad kala bar dadka caalamka ku nool. Wax soo saarkoodana waa 4 meelood meel wax soo saarka caalamka. Haddaba isbahaysigooda inuu miro dhalo ma aha arrin ay reer galbeedku ku farxayaan. Maxaa yeelay inta badan wadamadan iyo Mareykanka iyo xulafadiisa xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo. Ururkan waxaa la aasaasay sanadkii 2001 waxaana aasaasay 4 waddan oo kala ah: Brazil, Ruushka, India iyo China. Waxaana la dhihi jiray markiisii hore BRIC oo laga soo gaabiyey magacyada wadamada ururka aasaasay. 2010 waxaa ku soo biirtay South Africa. Isbahaysiga magaciisana wuxuu noqday BRICS oo waxaa lagu daray xarafka ugu horeeya magaca South Africa. BRICS waxaa loo aasaasay in kor loo qaado dhaqaalaha wadamada ku midaysan ururkan iyo inuu mid kasta uu noqdo awood ka dhex muuqata caalamka, sidoo kalena ay ka xoroobaan ku tiirsanaanta reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka. Isbahaysigan waxay rabaan inay yeeshaan tartamo u gaara, lacag u gaara, fiber optic u gaara iyo sanduuq lacageed oo u gaara. Waxayna rabaan inay isku filnaansho gaaraan. In muddo ahba doolarku wuxuu ahaa boqorka lacagaha, wuxuuna ahaa lacagta lagu kala ganacsado caalamka. Haddaba haddii isbahaysiga BRICS ay soo saaraan lacag u gaara, waxay hoos u dhigi doontaa awooddii doolarka. Inta badan shantan waddan xiriir wanaagsan oo dhanka siyaasadda ah lama laha wadamada kale, gaar ahaan reer galbeedka. Ruushka wuxuu dagaal ka wadaa gudaha Ukraine, wuxuuna culays kala kulmayaa Mareykanka iyo xulafadiisa, halka China ay doonayso inay gacanta ku dhigto Taiwan. Markuu Ruushku weeraray Ukraine, Mareykanka iyo xulafadiisa waxay saareen cunaqabateen, laakiin Brazil, India, China iyo South Africa midna kama uusan qayb qaadan cunaqabateentaas Ruushka la saaray, oo ganacsiga ay Ruushka la leeyihiin ma joogsan. Waana mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee uu Ruushku ka helay isbahaysigan. Haddii cunaqabateen la saaro wadamadan, waxay ka maarmi karaan dhammaan wadamada kale, maxaa yeelay waxay haystaan wax kasta oo ay u baahnaan karaan oo ganacsiga dhexdooda ayaa ku filan. Wadamo badan ayaa daneynaya inay ku soo biiraan isbahaysigan. Waxaa laga tilmaami karaa Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Algeria, Argentina, Mexico iyo Nigeria. Sidoo kale qaar kale ayaa jira oo iyaguna daneynaya inay ku biiraan isbahaysigan. Xubnaha isbahaysiga BRICS ayaa sheegay inay shirweynaha soo socda ay kaga arrinsan doonaan wadamada ku soo biiraya isbahaysiga, taas oo ka dhigan mar walba oo isbahaysiga wadamo kale ku soo biiraan inay awooddiisu sii xoogaysanayso. Mareykan iyo xulafadiisana ma jeclaysanayaan. Mid ka mid ah mashruucyada ugu waaweyn oo la hirgeliyey markii la sameeyey isbahaysigan waa New Development Bank, sida guudna loo yaqaano BRICS Bank. Waxaa la dhisay sanadkii 2014 wuxuuna u shaqeeyaa sida IMF-ta oo ah hay'adda lacagta adduunka. Wuxuu siiyaa maalgelin wadamada soo koraya, sidoo kalena wuxuu lacaga deemiyaa ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Haddii uu isbahaysigan si dhaba u shaqeeyo oo dowlado badan ku soo biiraan, waxay saameyn ku yeelan doontaa Mareykanka iyo xulafadiisa oo in muddo ahba siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka soo maamulayay. Haddaba haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaad nagu caawisaa inaad like saarto muuqaalka, asxaabtaadana la wadaagto. Mahadsanid.